إلهي يا مهد إسكالي إلهي نو قلادي إنان إسوغني مادنا ميشان دمان كسو قيب قلياشا بقرردا محوها ضياشا دمان كسو قيب قلياشا آدي آد مهد سنتهين أرنك عن إسوغني مد وحوية سقالكي بيشي تدوبات بيشي سقالات تدوبات بيشي سقالات أيا وحا دعي شل كسابسان ويل nin la yiraahdo Maxamed Xaashi Faarax oo joogay degmada Kaxda gaar ahaan kiiloomitir 13 oo maray laamiga ayaa niman ciidamada ah boolis ah oo ah qaybta traafiko baabuurka jiida wuxuu ahaa lagu dalbo wixii shila isagoo jiidaya gaari mooto saddex lugoodley ah isagoo jiidaya ayaa meeshaas wuxuu ku dhaawacay ninka la yiraahdo Maxamed Xaashi Faarax ninkaas oo joogay suuqa marka intaas awgeed ilaa maanta oo ah 9kii bishii 12aad waxa aan isugu nimid oo ay ku saabsan tahay arrinkan cabasho ku saabsan dhibaatada ka dhacday halkaas waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa odayaasha iyo muxuu ahaa ka soo qaybgalayaasha waana ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jeedino cabasho aanu cabanayno madaxda qaranka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo codsiba isugu jirta kana cabanayno xeer ilaalinta waxaan ka cabanay xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxaan ka cabanayna waxa yihiin kiis dhacay 7 bishii 9aad 2022 oo ahaa dhaawac xabadeed oo soo gaaray Maxamed Xaashi Faarax dibna uu geeriyooday dhaawacii xabadeed kiiskaasi wuxuu lahaa gungaar hay-adihii baarista ee ku shaqada lahaa marqaatiyaal dad ah gal dacwadeed aan geynay xeer ilaalinta ciidamada qirasho qaraabadii uu ka dhashay dhibgeystu ay noo qirteen intaa isagoo kiis kule waxaa dhacday inay xeer ilaalintu intiiba meel iska dhigtay gungaar iyo baaris ayada jeebkeeda gal dacwadeed ayada jeebkeeda oo ciidan anagu eedeynayno aanan dacweynin ayuu u samaysatay marqaatiyaal ayada jeebkeeda uu ka mid yahay dhibgeystihii iyo eedeysanayaashii anagu aan ku eedeynayna dilka inay maxkamadda horgeeyeen oo ay annaga inay nagu sidkaan damceen cid kale oo aan anagu dacwadu qabin haddii dambi galena dambi qaas annaga naga gelin oo ay kiiska iyagu ku baabi'inayaan waxaan rabaa inaan iraahdo waxaa la yidhahdaa Soomaalidu waxay yidhahdaan laba nin baa director laba waran wadata marka mid baa mid waran kula soo ordo uu cararay kii kale markuu ka hari diido hebel oo iga har waxa aan la cararaya taaduna waa ku jirtaa haddaan warmaa isla dhacnaado waa dhiman karta waxa aan ka cabanaynaa marka midda annaga kaliya maanta na haysa maahane Soomaaliyo dhan bay haystaa dhibka noocaasi ama uu dib ugu hore ugu soo dhacay ama uu dib ugu dhici doona madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta dadka ka ahna ilaahayna waa kula xisaabtamay iyagana uu haystaayo dadka iyo dawladda in la isku keenaa la rabay waxaan leenahay kuwaas waa duwaag dhex taagan meeshii dadkii dawladda la isugu keen lahaa oo kala celinay maxaa yeelay kiiskaas aan sheegno marqaatiyaasha leh oo baarista leh oo gal dacwadeedka leh oo qirashada qaraabadii leh oo intay noo yimaadeen ay nagala qayb qaateen daweyntii dhaawaca iyo sheegayna inay ka soo falayaan kharashkii ku baxay daweyntana ay qaybna bixiyeen qaybna mudaysteen marka uu maantay isagu kiiskii ninkii xeer ilaalinta ahaa ee cadaaladda laga sugayay oo isagu cid kale u saariyo oo madal hafiyo waa dadkii heshiin lahaa oo la isku dirayo dadka in la isku diraahina dee dawladda agteeda iyo ilaahay agtiisaba dambi bay ka tahay waxaan leenahay marka madaxda qaranka innaga hana loo cadaalad falo marxuumkana ha loo cadaalad falo qarannimadana ha loo cadaalad falo hana loo danayo dadka noocaasa ha laga qabto ummadda intaasaan leenahay madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan leenahay kiiskaas baaristiisa waa la maran habaabiyey waxa la idin hor keenay ma ahan baaristiisa saxda ahayd ma ahan eedeennii annagu ciddaan eedeynaynay ma ahan gal dacwadeedkeennii
markhaatiyaashu waa kuwii annagu aan eedaynayno dilka noo geysto dhaawaca geysto dhimashada keenay iska hubiya kiiskaa la soo marin habaabiyey oo hortiina yaalla ilaahayna uga baqa mas-uuliyadda aada haystaanna uga baqa annagana maaragtay cadaalad darraha nagu samaynina hubiya kiiskaas baaristiisii baa taalla markhaatiyaashiisii baa yaalla qirashadii qaraabada dhibgeystaha taalla intaasoo dhan kiiska ay taallo waxaa la idin hor keenay oo xeer ilaalintu keentay waa sidig ma ahan keenni iska hubiya ha nagu midi raacinina nama qabato adinka iyo xafiiskiina iyo cadaaladdiina ma qabato ummadda soomaaliyeedna ma qabato madaxda qarankana waxaan ka codsanaynaa innagana in loo cadaalad falo qarannimadana in loo cadaalad falo soomaalinimadana in loo cadaalad falo islaamnimadana in loo cadaalad falo dadka nuucaasa ilaahay wuu idinkula xisaabtamaya xilkana adinkaa u dhiibay awoodna ule inaad ka qaadaane dadka inaad ka qabataan baan idinka codsanaynaa odayaal kalaa iga dambeeya hadalka furdiisa anugu lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبشرت الله نوافجيو ماشان waxa isugu yimid saakay waa beesha reer Xaaji Saleemaan odayaashoodii khiyaartoodii intii wax ka oran jirtay iyo dhalinyaradoodii intaba waa isugu yimaadeen waxay ka cabanayaan ama ay cadeynayaan dhacday 7 bishii 9aad 7 bishii 9aad 2020 dhacdadaasoo ahayd 2022 dhacdadaasoo ka dhacday Tireediishe nin ku dhaawacmay dabadeedna dhintay oo ninkaasi la oran jiray Maxamed Xaashi Faarax gacantuna ay ka dhacday Abdi Maxamed cilmi ay ka dhacday gacantu Abdi Maxamed Amiin ay ka dhacday gacantu dhaawacmay laysaga yimid laga wada hadlay labadii cidood la isku waafaqay dhaawiciisii laga samafalay lagana ballamay hadduu dhinto iyo hadduu kacaba in ay leeyihiin qabiilkaasina uu yahay qabiilka la yidhaha boqol hore iyo qabiilka reer Xaaji Saleebaan ay ka kulmeen ay dhiibeen daawadii qayb ka mida intii kalena ay ka ballameen ayadoo sidaas ah ninkii uu dhintay ay sadibna noogu soo laaban kiiskaasi wuxuu leeyahay caddayn buu leeyahay la geeyey dambi baarista wuxuu leeyahay qirasho wuxuu leeyahay wax ka bixin wax laga baxshay wuxuu leeyahay ballan laga ballamay ninkii markuu dhintay waa la iska tegey naguma soo laaban dacwad baa la geeyey kiiskii si kalea loo rogay waxaa la yidhi ninka anagu ma aanu diline nin shabaab ahaa dilay ninkii taraafiigga ahaa oo dilay oon u haysanay oo walaalihii ka samafaleenna waxaaba iyo garsoorayaashii waxay ka soo dhigeen markhaati ayba ka dhigeen ninkii ruuxiisa wax dilay waxaa maqli jiray dowladdii maxamed siyaad barre ninaan nin dilay waa la dhoofiyaan maqli jire waa baxsadaan maqli jire laakiin nin joogo oo xiran oo ninkii uu dilay oo laga samafalay asagii markhaati ka ah indha adaygaas weligay ma arag waxaa kaloo la sheegay hadda dad badan ayaa dowladda lagu dhex arkaa la yidhi oo shabaaba dad badan oo shabaaba shabaabkii hadda ma wuxuu soo galay ma garsoorkuu soo galay waa yaabe waxaa la yidhi madaxtooyaaba laga helaa la yidhi haddana ma garsoorkaa laga helay ma aqbalayno mana yeelayno waana ka digaynaa laamaha dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo ra'iisul wasaaruhu ku xigo haddii la wasiirada xildhibaanada mas-uuliyiinta oo dhan waxaan u sheegaynaa kiiskaasi kiis qalada inuu yahay inuu kiis foolxun yahay inuu kiis la aqbali karin uu yahay mana aqbalayno mana aqbali doono waa kiis iska cad weeye oon daah ku rognayn ma aqbalayno mana yeelayno mana la aqbali karin cid aqbali kartaana ma jirto waa foolxumo in ninkii ninka iyaga dilay markhaati loo keeno oo la yidhaahdo ninkiina shabaabaa dilay isaguna uu ku muddaco shabaabaa xabada nagu soo riday inuu ku muddaco waa ninkii laga samafalay hadda ka war wuxuu yidhi qaylaa yeedha xagee ka yeedha masaajidka ka yeedha masaajidka aan cararaysiiyo masaajidkiiba ka yeedhuy sharcigii iyo garsoorkii nadiifka ahaa oo lagu kala baxayay hala aadaa la yidhi asagiyaaba qayla ka yeedha dadaa waxay ku xirxiran yihiin shabaabaa la aadi jiray shabaab hadda markii shabaab xirmay oo shabaab laga adkaaday oo shabaab la jabshay
oo meel la aada aan la arag sidii la rabo maa dadka midida loo saaraya ma aqbalayno anna waxyaalaha caynkaasa mana aqbali doono mana aqbalayno ninkayagiina boqol horaan ku leenahay caddayntiisiyaan haynaa ha ka waantoobeen nimanka garsoorka ahi oo laalay ama hakiyey dacwaddeedii caddayd nimanka hakiyey ha ka waantoobeen nin laga dhiman jiray dhaxal waa yaqaan reer xaaji saleemaan dhimasho waa yaqaaniin dagaal waa yaqaaniin ninkooda oo la dilo la raashana waa yaqaaniin annagu marka waxaan leenahay si cad baan u diidaynaa mana yeelayno mana aqbalayno cidaan ka aqbalayno garsoorna ka aqbali mayno nin haddii la wax soo madmadoobiyana ka aqbali mayno taraafiigii la joogana ka aqbali mayno kiiskaasi waa kiis cad oo laga samafalay inta 4 kun noo keenanay waxay yidhaahdeen noo sii daaya ninka 4 kun qaata war laydinma huba haddaan sii dayn inaad soo noqonaysaane bal 4 na siiya ninkana aan sii hayno hadda waxayba gadiyeen inta u burgadiyeen 4 kun waxaan u maleeyay qarin mayna annagu 4 kilo meel kale la geeyey war annagu odayaan nahay xog ogaan nahay wax kastaan nahay wax la sameeyay waan ognahay 4 kun oo diidnay miyaan ku dilayaa nala kuma dili karo mana aqbalayno mana yeelayno boqol hore iyo cidda aad saaxiibka la tihiin iyo garsoorkii waxaa soo jeediyey ma aqbalayno maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanaynaa iyo inta madaxda dowladda waxaan ka codsanaynaa dib ha loo eego hameen maahna waa 6 saac weeye 6 saacna indhaha sharootana laga saari maayo mana aqbalayno mana aqbali doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام ورحمة الله. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan waxaa maanta isugu yimid odayaal dhalinyaro aqoon-yahano qaybaha bulshada dadka kooban ee ka soo jeeda beesha reer xaaji saleebaan dadkaas waxay iskugu yimaadeen waxay tahay waa shil dhacay 7 bishii 9 2022 shilkaas oo ay geysteen gaari ciidamada dowladdu ay leeyihiin oo taraafiig ah xabado ka dhacay uuna ku dhaawacmay markii hore maxamed xaashi faarax shilkaasi markuu sidaa u dhacay oo wiilkaas uu dhaawacmay 3 nin baa gaarigaas saareed sida odayaashii sheegeen horey warka iiga horreeyey 3dii nin ka mida ayaa qori watay ninkii waa la xiray qoriga watay 2 nin oo kalena waa la sii daayey hawshoo halkaas maraysa dacwad ayaan furnay annaga gal dacwadeedaan furnay gal dacwadeedkii markaan furnay ninkii xiraa oo qoriga watay oo eedaysanaha ku ahaa kiiskaas ilaa ay maxkamadi xukun riddo eedaysana ayuu qofkaasi noqonayaa ehelkiisii baa yimaadeen maxamed xaashi faaraxoo dhaawacay yimaadeen odayaasha cidda rag ka mid ay u yimaadeen waxay inay arrintaas ka xaajoodaan oo dadka soomaalida ahi dhaqankii ka dhaxeeyey la maray ku yimaadeen iyadoo hawsha ay halkaas marayso geeriyaa timid wiilkii waa geeriyooday wiilkii markuu geeriyooday waxaa hawshaas soo farageliday si aanna isleenahay xisaabteenna iyo aragtideennu cadaaladday baalmarsan tahay xeer ilaalinta qaranka ayaa soo farageliday xeer ilaalinta ciidamada ayaa soo farageliday iyadoo kiiskii meeluusan jirin iyo magac uusan lahayn u samayday iyadoo ma garanaysaa iyadu jeebkeeda waxay rabta ka samayday xeer ilaalinta ciidamadu annaga marka haddaba warkeenu wuxuu yahay waa cabasho xeer ilaalinta waa ka cabanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maxkamadda ciidamadana waa oo cabanaynaa madaxweynahan ku hormaraynaahay waxaan leenaha madaxweyne ummaddan mas-uuliyaddeeda adaa ilaahay maanta kuu dhiibay waxaana ku ballannay oo soomaali ah kula ballantay inaad cadaaladda ummadda ku hagayso
inagu ma dhahayno dulmi ha nooloo sameeyo inagu waxaana lahayna ma raadinayno laakiin waxaan maanta ka cabanaynaa cadaalad darro ka timid xafiiska xeer ilaalinta ciidamada waxaan leenahay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada ummadda Soomaaliyeed wuu isku dirayaa kiiskaasna wuu mari habaabiyey isaga oo noogu awood sheeganaya qalinka iyo xafiiska jamhuuriyaddu ay isaga u magacawday ayuu wuxuu rabaa annaga inuu na doodsiiyo xaqeennii wax aanna shaqo ku lahayna qoorta noo saaro maadaama uu qalinkii hayo loo idmaday qalinkaas wuu naga dulminayaa wuu nagu dulminayaa cabashaan ka nahay madaxweyne adaan kaaga cabanaynaa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada waa dul istaagaynaa dib ayuu nagu hayaa waa ka cabanaynaa madaxweyne waxaana rajaynaynaa cabashadeenna in wax laga qaban doono isla sidaas maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan leenahay shuutow waadna garanaysaa waana isgaranaynaa xaq aana lahayn iyo xuquuq aana lahayn ma kaala hadlayno noo sameena ma ku dhahayno kiiska ku salaysan galdacwadeedka maxamed xaashi faarax oo xafiiskaaga yaala oo la rabo in sidig khaldan loo sameeyo shuutow waxaan ku leenahay si fiican mudane oo fiiri waxaan ku leenahay si cadaaladeysan oo fiiri waxaan ku leenahay si mas'uuliyadeysan oo fiiri waxaan ku leenahay si ku salaysan curfiga iyo dhacdada dalka ka dhacayda qaabka oo fiiri meesha in la ku dulminayaan tuumayna warqada dulmiyana xafiiskaaga loo soo wado xeer ilaalinta ciidamaduna ay u soo wado kiiska marka ku suntan marxuum maxamed xaashi faarax shuuto waxaan ka codsanaynaa mar labaadaan ku celeynaa waa isnaqaanaa wanaag baa naga dhaxeeya dulmi noo sameey ma ku dhahayno noo sameey ma ku dhahayno kiiskaas waa nala ku dulminayaa waxaan rabnaa inaad si fiican u baarto si fiicanna aad uga baaraadegtid waxaan diyaar u nahay inaan kula wadaagno wax alla wixii macluumaada oo aan hayno oo aan ma garanaysaa ku cadaynayno cabashadeenu inay sharciga waafaqsan tahay aan diyaar u nahay inaan kula wadaagno adiga iyo intay qusaydo oo cadaalad iyo wanaag u saaxiiba waxaan diyaar u nahay inaan la fariisano inaan keenno wax aan rajaynayna markaan hortiina kale inaad ku qanacdaan laakiin yaan nala gowricin yaan nala boobsin dalkan iyo dadkan cadaalad daradii ay ku dumeen sharci daradii ay ku burbureen yaan maaragtay nala ku boosin oo nala ku dulmin waxaan rabaa warkayga inaan ku soo khulaaseeyo inagu waxaan nahay wanaag doon waxaan nahay cadaalad doon waana ka garaabi doonaa waana ka magaranaysaa istaagi doonaa waxaan ku khaldannahay laakiin ninkaas dhintay dadkii dhaawacay wiilkii dhaawaco eedeysanaha kuwa qabiilkiisiyaa noo yimaadeen waxaan rajaynaynaa iyadoo dukumiintiga inaan gey doono meel walbaan la tegi doonaa warkayga waxaan rabaa inaan ku soo khulaaseeyo waxaan dalbanaynaa inagoo odayaasha reer xaajiya oo meeshaan maanta jooga inagoo qaranka u hoggaansan inagoo wanaag ugu hoggaansan inagoo dadka dowladnimada iyo dalkan inuu dib u dhismo garab taagan ah in nala ku dulminayo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabashada iyo dadka beesha reer xaaji saleebaan oo meeshaan isugu timid oo bah iyo boqor leh waxay isugu yimaadeen dhacdadii ka dhacday Tareedisho marka waxaan rabaa inuu inta ugu dambaydo oo cabashada ay ku saabsan tahay inaan ka hadlo intii hore waxaa ka hadlay odayaashii iyo waxgaradkii ka horreeyay waxay ka cabanayaan kiiska maxamed xaashi faarax oo dhaawacmo oo dhintay baaridii ay baartay hay-adaha kala duwan nabad sugidda hay-adaha kala duwan ee dembi baarista CID oo lasoo baaray inuu mara habaabinayo xeer ilaaliyaha ciidanka taasaan maantay annagu aan cabasho ka nahay maaragtay laysaga yimid haddaan nahay aqoon-yahano haddaan nahay maaragtay waxgarad waxaana leeyahay odayaashii iyo uwaasyadii ugu horreeyaa ka hadlay waxaan leenaha baaq u diraynaa xeer ilaaliyaha ciidanka inuusan isku dayin kiiska maxamed xaashi oo meelo badan soo maray oo la daba joogo xageelo geel waxa gunti la geliya ka weyn
waxaan leenahay xelaliye ha isku dayin kiiskaas ha isku sidkin nin shabaabana kiiskeena shaqo kuma leh ninkii dilay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله عليه وسلم odayaasha ay ugu horeeyaan ugaaska imaamka iyo dhammaan nabadoonnada iyo samadoonnada iyo aqoon-yahanada iyo dhalinyarada beesha reer Xaaji Saleebaan ee maantay goobta isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan rabaa aniga xogta shilka guud ahaan odayaashu ay ka hadleen si muuqata oo miisaan leh oo mug leh ayay uga hadleen oo faahfaahsan. waxaan rabaa marka qoraal yar oo haaf ah oo maaragtaa xoogaa faahfaahina inaan akhriyo. waxaan rabaa inaan bilaabo qoraalkii taariikhdu markay ahayd 7 bishii 9aad 2022 gaari ay wateen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada taraafikada qaybta gobolka Banaadir oo Cabdibile ah ayaa marayay wadada laamiga ah ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan kiiloomitir 13 ayaa rasaas ay rideen ku dhaawacay marxuum Maxamed Xaashi Faarax. dhaawaca marxuumka waxaa la geeyey isbitaal Madiina iyadoo lagu sameeyey 3 qalliin xilliyo kala duwan waxaana xogta dhaawaca marxuumka galdacwadeed looga furay xarunta CID. intii ay socotay baarista CID ay samaysay waxaa la hor keenay marqaatiyaal goobjoog u ahaa shilka sida uu u dhacay. dhammaan waxay caddeeyeen in askarta wadatay gaariga Cabdibilaha xabaddu ay ka dhacday xabaddaasna uu ku dhaawacmay Maxamed Xaashi Faarax xabado kalena aysan goobta ka dhicin. sidoo kale waxay marqaatiyaashu ka hor caddeeyeen xafiiska xidha ilaalinta ciidamada in askarta ay rideen xabadda uu ku dhaawacmay dhibane Maxamed Xaashi Faarax. intaa kadib hay-adaha dembi baarista waxay noo sheegeen in la soo xiray askartii wadatay gaariga Cabdibilaha ah. baaris ay ku socoto si loo helo cidda kiiska geysatay. waxayna kala ahaayeen askarta la soo xiray Cabdi Maxamed Amiin oo ahaa askariga dilka geystay, Cabdirasaaq Cadow Axmed, Nuurudiin Cali Gabayre. baarista kadib waxaa xabsiga dhexe loo gudbiyey laguna xiray Cabdi Maxamed Amiin oo ay ku caddaatay inuu geystay dhaawaca marxuumka maadaama uu ahaa askariga kaliya ee qoriga watay. intaa kadib waxaa noo yimid qaraabada ehelka aabbaha askariga, qaraabada iyo ehelka oo uu ka mid ahaa aabbihii askariga eedaysanaha dhalay. waxayna naga codsadeen in aan kala xaajoonno dhaawaca dhibanaha soo gaaray. wadahadal kadib waxaan ku heshiinay in ay bixiyaan qarashaadka ku baxay dhibanaha dhaawaca ah iyo midka ku bixi doona insha Allah. inta uu ka bogsanayo waxay aqbaleen inay bixiyaan dhaawaca dhibanaha intuu ka bogsanayo inay bixiyaan dhibkii iyo daawadii iyo maaragtaa ayaga isbitaalka inuu u yaalo. wayna aqbaleen gebi ahaanba waxayna bixiyeen qayb ka mid ah qarashaadkii ayagoo muddo u qaatay bixinta inta dhiman. haddaba maxaa dhacay? annagoo ku heshiinay in wadahadalkii ehelka iyo aabbaha iyo qaraabada annagoo ku heshiinay inay bixiyaan qarashka ninkaas isbitaalka ku jiro 3 qalliin galay qarashaadka ku baxay inay maaragtaa ayaga u yaallo qarashkii qayb ka mid ah ay bixiyeen, qaybta kalena ay yiraahdeen waa doonayna. haddaba maxaa dhacay? annagoo sidaas isku og waxaa geeriyooday dhibanihii dhaawaca ahaa taariikhdu markay ahayd 23 bishii 10aad 2022.
waxaan kala kulannay xafiiska xeer ilaaliyaha cagajuglayn iyo cadaalad la-aan. wuxuu meesha ka saaray dhammaan cadaymihii muujinayay dhibanaha dilka geystay. wuxuu marin habaabin ku sameeyey kiiskii isagoo sheegay in shabaab dileen isagoona uusan wax cadayna u hayn. askarigii dilka geystana iyo kuwii kale oo la socdana wuxuu ka dhigay markhaatiyaal. sidaas daraaddeed oo qoraalkan sida aan sheegaba odayaasha ayaa ka hadlay, faahfaahinta aada uga hadlay, wax lala yaabo oo ugub ah oo fajicisan ugu noqotay, oo odayaasha qabiilka oo meeshaan fadhiya iyo bahda say u dhan yihiinba ay la yaabeen. waxaa noqotay dad ehele ah oo Soomaaliyeed oo dhaqankii iyo sidii lagu yaqaanay markii dhibdhaco waa la isku yimaadaa, waa laga xaajoodaa, waa lagu ballamaa. intaasba maqal iyo muuqaal iyo dukumiinti iyo caddayn dadka meeshaan fadhiya iyo dadka xaajada ay dhex martay oo cabdi maxamed amiin ehelkiisa ah ay dhex martay ayaa dhacdadaas aan ka soo sheekaynay oo xeer ilaalinta ay sameeyeen ayay nagu dhacday. haddaba waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaasha maxkamadaha ciidamada qalabka sida, waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa inay soo farageliyaan kiiskan. arrin sahlan maahan, arrin aada iyo aada u dhib badan oo maaragtaa lala yaabay oo ehelka meesha iskugu yimid qayb badan oo ka mid ah ay la fajacsan yihiin. waxaan codsanaynaa oo aan ku tartarsiinaynaa oo aan si muuqata uga codsanaynaa guddoomiyaasha maxkamadaha ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyo guddoomiye Shuute iyo guddoomiye Liibaan intaba inay arrintaas soo farageliyaan. waxaan ku naqaanaa Shuute nin maaragtaa muddo dheer ku soo shaqaynaya dalkan, maxkamadda ka soo shaqaynayay, aan qalad iyo maaragtaa waxyaabo hoosgelisa aqbali inuu aqbalo aysan ka suurtogelayn. laakiin guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa hadda sida aan xogta ku hayno kiiskan wuxuu ku yaalaa xafiiskaada. hadda waxaa la keenay kiiskan xafiiskaada. waxaan kaa codsanaynaa guddoomiyow, adiga oo xushmad aada u weyn beesha meeshaan fadhida iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ma xushmad badan ay ku haydo, waxaan kaa codsanaynaa arrintaas inaan lagu hoosgelin. arrinta aan ka soo sheekaynay ee caddaymaha muujinayana gacantaan ku haynaa. waxaan rabnaa arrinkaas arrin caadiya maahan, arrin la aqbali kara maahan. waxaan mar labaad aan kaa codsanaynaa guddoomiyow oo aan kuu soo jeedinaynaa in arrintaas hoosgeliska ah oo lala yaabay oo arrin la aqbali kara aan ahayn inaad maaragtaa wax ka qabato. intaas ayaan odayaasha anigu ku daraya hadalkooda. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.